waxaan marka hore u mahadnaqayaa dadweynaha sharafta ee golaha dhexe xisbiga marti sharafta waan ugu horeysiinay haweenkayga saxabariyeen dhammaantood haddii assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. waxaan labaad u mahadnaqayaa dadweynaha reer Burco oo si sharaf leh loogu soo dhaweeyey imaamkaygii magaalada Burco. waxaan ilaahay ugu mahadnaqayaa in shalay guddigii ka imanayay xubnihii golaha dhexe ka imanayay gobolka Awdal laba ka mida in gaariga ay wateen oo la gadoomay laakiin alxamdulillahi rabbilcaalamiin isagoo ku hawlay golaha dhexe axmed shaqaadan iyagoo saciidkii cali oo la socday ilaahay mahadii waxba ma gaarin way nabad qabaan way badbaado qabaan wixii taageero iyo taageero u baahdeenna si dhaqsaala xisbigu markiiba u burburiyey. maanta waa mahadnaqu dowladda xisbigana gudoomiyaha iskale laakiin wixii mahadnaqii waxaa iga soo hormaray oo aan aad rabaa inaan aad ugu mahadnaqo ka soo joog xubnaha golaha dhexe xisbiga iyo madaxda xisbiga iyo hogaanka ugu horeeya gudoomiyaha xisbigu marti sharafta oo hogaaminayo madaxweynaha qaasum state iyo cabdilaahi wasiirkii hore caafimaadka oo maanta halkan ka caddeeyey in xisbiga kusoo biiray. ma aha soo dhaweynta cabdilaahi inay tahay inaan si kula soo dhaweynayo wuxuu ka mid yahay rajada doonta dadka barakatirska ee u hagamaya in Somaliland la wada leeyahay oo horumarka in la helo ilaahay waxaan rajaynayaa isaga inta kalaba inaan gacmaha isqabsano. waxaan marlaba takale aad soo dhaweynayaa professor cali khaliif oo aniga ahaa markaan shaqada bilaabay wasiirkii ugu horreeyey ee wasiiriin noqda aad iyo aad baan ugu soo dhaweynayaa waxaan ku leeyahay soo dhawow. cali khaliif marar badan wuxuu yidhi hadalladiisa waxaan aad uga qusaa inuu yidhaahdo war wallaahi haddaan la isdhegaysanin oon la isdhexgelinin oon Somaliland la wada yeelan la wada fashan inaanan Somaliland jiraynin. wallaahi baan leeyahay waa run haddaan la isdhegaysan oon la isdhexgelinin inaan Somaliland jiraynin. awdal oo aan ka soo jeedo waxaa lagu yaqaanay qalin iyo nabadgelyo waa meesha Somaliland laga asaasay. hadda waxaa la hadalaya inay jabhado ka bilaaceen Somaliland. waxaan u sheegaynaa waa jabhado rajo muujinaya Somaliland ee maaha jabhado suginaya Somaliland. nimanka dadka xukuma madaxweynaha iyo maxamed kain waxaan u sheegaynaa hadday qalinka iyo aqoonta iyo nabadgelyada dhegaysan waayeen oo ay ka soo noqon waayeen iskaga fukinayaan dee qorigaa la qaadanaya alla qoriga yaqaanaan meel kastaan cid walba qoriga way qaadan. Somaliland darteed waxay ku jirtaa in la isdhegaysto oo la ismaqlo oo la wada tashado. ilaahay waxaan ka rajaynayaa rajaa jirta where there is hope there is life. rajada Somaliland waxaa ugu horeysa ummadda Somaliland oo uma sharaf laha nabadgelyo jecel laakiin hoggaanka ka hadlaaday. waxaa rajada ku jirta dad badan oo ay ka mid yihiin aqoonyahankeedu oo diyaar oo iyaga inay wax ka qabtaan marka dhalinyarada la baratay. ilaahay waxaan rajaynaynaa shirkeenna inuu ka dhigo si nabadgelya waxaan isku nimanayna ilaahay inooga dhaliyo Somaliland ha guulaysato reer ha guulaystaan dhammaantiinna wada guulaystaan. aad iyo aad baan u salaamay.